بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa oo lacag deeqa oo abaaraha ah na soo gaarsiiyay oo ku soo hagaajiyay ururka Gurmad Relief ee khayriga ah xildhibaanada iyo senator Mustafa Maxamuud Qadax, xildhibaan Yurub Axmed Raabi, xildhibaan Cabdirasaaq Daahir Maxamuud iyo xildhibaan Muuse Siciid Jaamac Janagale oo na soo gaarsiiyay lacag dhan $5,500. waxaan leenahay jazaakumullahu khayran iyagoo runtii ugu talagalay inay hawshaasi abaaraha gobolka Hawd wax lagaga qabto biyo dhaaminta iyo cuntada iyo raashinka in wax loogu taro. maaha runtii gacantii koobaad maaha. waxaan leenahay ilaahay khayr ha idinka siiyo, miisaanka xasanaadkana Allah idinku daro, maqaamkiina Allah idinku siyaadiyo. hawshaasi runtii aad dadka ugu kacdeen ee aad wax ka geysateen. waxaanu ka wada warqabnaa walaalayaal, sadaqadu inaanay xad iyo xuduud aanay kala lahayn, isla markaa aanay siyaasad iyo nifaaqina aanay lahayn. ruuxu uu sadaqada meel fog iyo meel dhow intaba uu ka soo diri karo. mar haddii uu dad masaakiina oo ehelkii ah ama walaalihii ah uu caawinayo, meel fog iyo meel dhow labadaba waa laga bixin karaa. jazaakumullahu khayran. aad baan idinku ducaynaynaa. lacagtii runtii waa tanoo waa ina hor taallaa, qadarkeedu waa $5,500. aad iyo aad baan ugu mahadsantihiin. waqti adag ayaa runtii ku soo beegteen. intan iyo in ka badan iyo in ka sii badanna waa la isaga fadhiyaa insha Allah. waa mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Bismillaah, alxamdulillaah wakafaa, wasalaatu wasalaamu calaa cibaadihi aladiina istafaa. marka hore ilaahay subxaanahu wa tacaala mahad oo dhan iska leh. waxaanu u mahad celinaynaa iyagana senatarka Mustafa Maxamuud Qadax iyo xildhibaan Yurub Axmed Raabi, xildhibaan Cabdirasaaq Daahir Maxamuud Cawad iyo xildhibaan Muuse Siciid Janagale. waxaan leenahay halka ka soo saarteen ilaahay subxaanahu wa tacaala marka hore wax ka khayr badan Allah idinku bedelo, miisaanka xasanaadka Allah idinku daro. marka xigta waxaa noo muuqataa in aad dadkiina la dareen tihiin dhibaatada halkan taala idin saamaysay. xaqiiqatanna qofku markuu isagoo kaafo ku xasuusto waa uu ka mudan yahay qofka isagoo ku dhow wax ku dhiiba. waliba waqtigani waqti munaasab ay tahay in gacmaha la fiiqo oo dadka muslimiinta ama dadka walaalaha loo naxariisto. biyihii iyo cuntadii iyo calafkii xooluhuba ay ka idlaadeen, ay ka dhammaadeen. waa arrin qiimaheeda le weeyaan. waxaan leenahay walaaluhu sidaa uu sheekhu sheegay maaha gacantii koobaad, horena way uga soo qayb qaateen, iminkana way ka qayb qaateen. insha Allah dibna way uga qayb qaadan doonaan hadday sii jirto abaaruhu. Allah inaga fogeeye. waxaan leenahay waa mahadsantihiin, waa mudantihiin in la idin mahadnaqo. ilaahay aafaadka ha idinka badbaadiyo, dhibaatada Allah idinka badbaadiyo, caafimaad Allah idinku siiyo. ilaahay subxaanahu wa tacaala kuwii ku taraqiya ilaahay subxaanahu wa tacaala ha idinka yeelo, miisaanka xasanaadkana Allah idinku daro. aad iyo aad baa u mahadsantihiin. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.